assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel kastoo dunida ka joogtaan ku soo dhowaada cabdimajiid nadwe waa mar kale iyo daawadayaal muuqaal kaloo cusub oo aan idinku talagalay inaan wax idinka faa'iideeyo islamarkaana aqoontiinna iyo maskaxdiinnaba aan wax ku soo kordhiyo keliya anigu waxba idima dheeri balse daawadayaal wixii aan soo akhrino ama aan kolba soo diyaariyo ayuunbaan idin soo gudbiyaa islamarkaana aan jeclaystaa in aan walaalahayga kale wixii aqoontayda ee aan garanayo aan iyagana la wadaago. haddaba daawadayaal muuqaalkani wuxuu ka hadlayaa qiso runtii aad iyo aad u cajiiba islamarkaana xikmad fara badan ay ku duugan tahay noloshaada iyo habnololeedkaagana wax badan aan rajaynayo inay ka bedeli doonto. qisadan magaceeda waxaa la yidhaahdaa caalimkii laga fahmay 18. nin caalim ahaa oo dadka cilmiga diinta u faa'iidayn jiray ayaa maalin maalmaha ka mida waraystay ardaygiisii oo muddo 30 sano aan mar keliya ka fogaanin. kadibna waxa uu ogaaday in muddadaas dheer casharada uu ardaygiisu ka faa'iiday ay 8 keliya yihiin. haddaba su-aashu waxay tahay 8 cashar miyay yihiin kuwo u qalmayay wakhtiga intaas leeg? qisadan oo ay xikmad badani ku duugan tahay waxay ku bilaabaysaa sidan. caalimkii ayaa hadalka bilaabay oo yidhi ardaygiisina weydiiyey ilaa goorma ayaynu wada soconnay. ardaygii ayaa u jawaabo wuxuu yidhi 30 sano ayaynu rafiiq ahayn. caalimkii ayaa hadalka ku celiyo wuxuu yidhi wakhtiga intaas leeg maxaad iga baratay? ardaygii ayaa jawaab ku celiyo wuxuu yidhi 8 masalo keliya. caalimkii ayaa haddana hadalka qaatay waxaanuu yidhi cimrigayga oo dhan ayaan kuu huray markaasaad 8 masalo oo keliya iga faa'iiday miyaa? ardaygii ayaa u jawaabayoo wuxuu yidhi been ma sheegi karo ee 8 darsi ayuunbaan kaa faa'iidaystay muddada intaa leegaynu wada joognay ama aynu wada soconnay ama rafiiq aynu wada hayn. caalimkii ayaa hadlo wuxuu yidhi bal hadda ii sheeg 8 masale aad iga faa'iiday. ardaygii ayaa tiriyey duruusta uu ka bartay waxaanuu yidhi 1 waxaan kaa bartay in ruux kasta uu dunidan ku leeyahay hiwaayad iyo balwad uu jecel yahay oo ku raaxaysto laakiin maalinta uu dhinto ee adduunyada kaga hadho markaasaan doortay in xasanaadka iyo cibaadada aan ka dhigto wehel iyo jacaylka dhabtaa waayo waa shaqada keliya ee la hubo inay qabriga kuu raacayso. 2 waxaan kaa bartay qowlka alleh ee macnihiisu yahay qofka ka cabsada horjoogista ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu hor istaagi doono ee uu naftana u diida hiwaayada iyo inay balwadeeda raacdo jannada ayaa hoygiisa ah. wa ammaa man khaafa maqaama rabbi wanaha nafsa cani ilhawaa. markaasaan naftayda ka fogeeyey hawadayda oo aan ku xasilay daacadda alleh. qodobka 3 ama masalada 3 ee aan kaa faa'iiday waxay tahay dadka oo dhan ayaan u fiirsaday markaasaan arkay qof kastaa si gaara inuu u haysto shay qiimo badan agtiisa ku leh oo aanu marnaba dayacaad u quudhaynin. haddana waxaan eegay hadalka alleh ee macnihiisu yahay waxaad haysataan waa uu dhammaanayaa waxa alla haystaa ama waxa ilaahay agtiisa yaalaana waa uu waarayaa. maa cindakum yanfad wamaa cinda allaahi baaq. markaasaan mar kasta oo aan hantiyo shay qiimo badan waxaan u baxshaa hore ama si dhaqsaabaan ilaahay dartii ula baxaa si uu isagu agtiisa iigu ilaaliyo waana sadaqada. masalada 4 ee aan kaa faa'iiday waxay tahay waxaan arkay dadka oo dhan oo isugu faanaya maal nasab iyo tol. kadib waxaan eegay hadalka alle macnihiisu yahay alla agtiisa waxa idinku qiimo badan kiina ugu alla ka cabsiga badan inna akramakum cinda allaahi atqaakum. markaasaan dhexda u xidhay cabsida alleh si aan alle agtiisa laandheero uga noqdo. masalada 5 waxaan arkay dadka oo badhbadhkooda kale ceebaynayo oo dhalleecaynayo sababtuna ugu badan ee keentayna ay tahay xaasidnimo. kadib waxaan eegay hadalka alleh qur-aankiisa uu ku yidhi annaga ayaa noloshooda adduun u qaybinay risiqa lacagta caqliga
fahamka, cilmiga, awoodda iyo wixii la mida. markaasaan iskaga tegay xaasidnimadii, dadkii sharkoodana ka dheeraaday. waxa aan naftayda ku qanciyey inay qaybtu xagga alle ka timaado. markaasaan xaasidnimadii ka bogsaday. masalada lixaad ee aan kaa faa'iiday waxay tahay, waxaan arkay dadkii oo barbarkooda kala colaadinayo oo dhiigooda uu qubaayo. markaasaan haddana eegay hadalka alle uu ku yidhi qur'aankiisa, shaydaanku cadow ayuu idin yahay ee cadow ka dhigta, yacni bimacnaa u garta yacni inuu cadowgiina yahay. ina shaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa. markaasaan iskaga tegay colaadda aadamaha oo aan u banbaxay colaadinta shaydaanka oo keliya. masalada toddobaad ee aan kaa faa'iiday waxay tahay, waxaan arkay dadkii oo midka kale naftiisa u xanuujinayo una dulaynayo sidii uu risiq ku heli lahaa ama uu risiq uga heli lahaa, xitaa marmarka qaarkood ay la gelayso waxaan xalaal u ahayn. markaasaan haddana dib u eegay hadalkii alle subxaanahu watacaala uu yidhi, ma jiro noolo dhulka guudkiisa jooga oo aanu alle risqigiisa saarnayn. macnaa wamaa min daabatin ilaa cala allaahi risquhaa. markaasaan naftayda ku qanciyey inaan ka mid ahay noolahaas oo alle risqigiisa dusha u ritay. sidaa awgeed waxaan ku mashquulay wuxuu alle igu leeyahay ee waajibaadka soo bixis ah, isagana alle subxaanahu watacaala aan u dhaafay intaan anigu ku leeyahay oo ah inuu yarsaaqo. masalada sideedaad aan kaa faa'iiday waxay tahay, waxaan eegay dadkii. markaasaan arkay in mid kasta oo ka midihii uu ku tiirsan yahay oo uu tala saartay makhluuq kale oo sidiisa un alle subxaanahu watacaala u abuuray. mid maalkiisa iyo risqigiisa ayaa uu ku tiirsan yahay, mid danihiisa kale, talada deegaankiisa ayuu ugu tiirsan yahay, mid caafimaadkiisa ayuu u daba fadhiistaa. meel kasta qof ayuu waxway u samaystay. markaasaan haddana dib u eegay qowlkii ilaahay subxaanahu watacaala ee macnihiisu ahaa kii alle subxaanahu watacaala tala saarta ilaahay wuu ku fidan yahay. waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasbuh. intaas ayay qisadii ku dhan tahay daawadayaal. intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.